الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأحبتي في الإسلام أينما كنتم وحيثما كنتم، من مسجد عائشة مدينة نياجرا فولز كندا، يرد الشيخ عبد الوهاب نور، الشيخ عبد الوهاب نور إمام مسجد عائشة مدينة نياجرا فولز لكندا أن يلقي كلمات وجيزة يحدثنا عن أهمية الوقت وكيفية الاستفادة من الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فيتفضل الشيخ عبد الوهاب مشكورا. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مركوه إلهي سبحانه وتعالى يا محدثكره أنا نعموينكيسا نسوكو بكرين. رب سبحانه وتعالى قرآن يسوع ليه وأما بنعمة ربك فحدث. إخواني، سيدا هوري لو إعلامية كلمة وحي كساب سنتهي كيف نستفيد الوقت. وقت سيدا فائدة سنينا جالس كمان تعليق عن تاروكوجي سيدا فائدة سنة وقتها هدي أليك كفائدة سمويس أسوي بحيا. marka kelimadu waxay ku saabsan tahay waqtiga horta nicmo oo ilaahay na siiwaay. ilaahay nicmooyinkiisa lama soo koobi karo. marka saan ugu faa'iideysanayna maadaama nadwada anaa furay, waxaan ku furay luqadda Soomaaliga insha Allah. kelimadan ayadoo insha Allah luqad kala Carabiga iyo Ingiriiska waa la soo gelin doonaa maadaama aniga aan furay oo lagu furay luqadda Soomaaliya. marka waxaa la rabaa in waxaan ugu talagalnay dadka oo afka Soomaaliga ku hadlo inay ka faa'iideystaan. aayadaha sheekhu uu qor akhrinaay waa maqlayseen. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qiyaamaha markii la tago dadkii adduunka wax badan soo joogay, qaala kam labithtum fi lardi cadada siniin. fiiri, kam labithtum meeqaad kusoo nagaadeen adduunka markii la dhaho maxay dhahayaan? labithnaa yawman aw bacda yawmin, maalin ama maalin barki. fiiri ikhwaani, jaaniska maanta adiga aada haysato haddii ilaahay ku sii waxaa la rabaa daacad ilaahay ugu faa'iideyso. haddii fursad ay heshid qur-aanka ku akri. waqtigan waa lagu weydiinayaa. xadiidkii nabigeena calayhi salaatu salaam wuxuu leeyahay qiyaamaha markii la tago qofka kama suula ilaahay hortiisa lugtiis ma dhagaajinayo ilaa uu ka jawaabo su-aalaha. maxaa ka mid ah afarta su-aal? wa can cumrihi fiima afnaah, cimrigii lagu soo siintee kusoo dhimaysa. waxaa laga yaabaa 5 saacadood inaad adiga aad taaganaatid banaanka oo sheekaa u taagnaatid daacadii. waxaa laga yaabaa in adiga waqtiga dheer uu kugu dhaafo. waqtigaa aduu kaa go-an yahay, waqtigaaga ka faa'iideyso. baryahan waxaad arkaysaa meel kasta hadaad aragtaan fiiriya masaajidaha markii lasoo galo waxaad arkaysaa ayi masjid fiiri. waagi hore masaajidaha kitaaba la akhrisan jiray, qofkas qur-aankiisu ku mashquulsanaayo. hadda markii masaajid kasta adiga aad tagtid oo salaad aad u tagtid, dadka badankooda waxay ku jiraan internetkooda ama social media ay ku wada jiraan. masaajidkii dhexdiis whatsappkaa lagu jiraa, facebookaa lagu jiraa. masaajidkii dhexdiis social media hata masaajidka u soo galay. u fiirsada meel kasta idinka aad joogtaan masaajidaha fiiri. haddii saa loo soo fadhiisto qofkas waxa waye mobilkiisu ku jiraa. waxaa laga yaabaa wax yar aan ka faa'iideysanaya kitaab iska akhrisanaya. marka waqtigan waxaa rabaa ikhwaani inaan ka faa'iideysano. ilaahay subxaanahu wa tacaala dhilma noo abuuray. waqtigan waa las weydiinayaa maxaad ku soo dhamaysay cimrigii lagu sii. aayadda sheekhu noo akrinaa ilaahay muxuu yidhi afaxasibtum annamaa khalaqnaakum cabatha wa annakum ilayna laa turjacuun.
waxaad u malayseen in idin abuuray cayaar wa annakum ilayna xaggeena laakiin jacona ma idin soo celina waa lagu weydiinaya marka waqtiga in laga faa'idaystaa fiican nabigeena calayhi salaatu wasalaam meel kale wuxuu ku leeyahay xadiidka ibnu cabbaas nicmataani maqbuulun fiihimaa kathiiru min annaas wahuma asixa walfiraaq labo dadka looga nicmeeyo faraaqo iyo in adiga macnaha waqtigaaga aad ka faa'iidaysid waqtigaan waagu markuu bariyo wuu kula hadlayaa iga faa'iidayso uu ku leeyahay ma soo noqonayo waqti marka waqtiga waxaa la rabaa ikhwaani in laga faa'iidaysto in macnaha waqtigaan la gelinayo social media waqtigaan oo adiga 5 saacadood oo social media aad ku jirtid waxa waaye wax khayr dadka inaad u sheegtidaa lagaa rabo inaad waqtigaaga oo qur-aan aad akhrisid aad maanta isweydii waxaa laga yaabaa maalintii meeqaa jus akhrisay qur-aanka kam jus qur-aanka ma akhrisay isweydiisi marka ikhwaani waxaa loo baahan yahay insha allah nadwada waa ka faa'iidaysan doontaan insha allah waxaa la rabaa habeenada kalena insha allah maadaama nadwadan sheekha oo agteeda fadhiyo iyo aniga iyo wadaado kale looga insha allah aan soo martaqaaday ayagan insha allah waqtigooda aan kasoo qayb galan dhahayna insha allah waa nala jiraan ayagana hadda luuqo kale way ku bixi doontaan marka waxaa la rabaa in waqtigii laga faa'iidaysto ikhwaani maadaama nadwadii aan furay oo liiga dambeyn doono insha allah iyo su-aalooyin wax badan aa dambeey waa mahadsantiin wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu